السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أصحاب تلمون برودكشن سود هذا وحنا ذي مذاق السعادة العجيبة وعن رجينا هنا قصدنا كلي دونتان كليتين كنا تكون موجود دونتان الله جريسان قصدنا إسلام مركنا سيشر جريسان هذا كعصب الجنال كتلمون برودكشن وعلى سوري ميان لقى محي الجنال كان تلمون وتلقى كتلنا سبسكرايب صار قبل كان فرو هاد سنة ليابك الدنيا نين حاسكيس أوفر فالحما أوجد دور بحين قصل إيو الله ياب حنبارسن guurku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha qofka waa sadii uu helo oori xaas ama say uu ku nagaado ama ay ku nagaato taasi ay ku lamaansan tahay baraaraha nolosha ama guldarada in aad hesho qof nolosha kula wadaago waxay kugu qaadan kartaa waqti kooban ama mid dheer hadiis uu noqdo guurku mid reen leh iyo rajadiisa la gaaro halkaasi waxa ka bilaabata nolol cusub iyo asaas qoys balse taas hadii la waayo natiijadu waxay noqotaa lagu kala wad iyo in dhabarka la isxijiyo iyadoo furiinka ku yimaado ugu weynaan in la isku fahmi waayo nolosha waana halka marka uu dhaco furiinka qof kasta niyadu ku qawajiyo calafka ayaa intaasi ku ekaa haddaba furiin ka duwan kuwa caadiga ah ee lamaano ku kala boodaan ayaa ka dhacay waddanka Shiinaha kadib markii nin lagu magacaabo Jian Feng uu maxkamad tagay isagoo sheegay inuu doonayo in uu furo xaaskiisa isagoo sabab uga dhigay foolxumo uu indhaha la siin kari la'yahay xaaskiisa taasi oo muuqato markii uu guursanayay inaan u jeedin falxumadeeda laakiin way ka ahayd islaanta bal aroos dood dhanka sharciga ayaa ka dhalatay in ninkaasi uu leeyahay xaq inuu xaaskiisa u furo falxumo darteed waxaase la sheegay in dacwadda iyo doodda uu muddo jiitamaysay ay keentay ugu dambeyntii in Feng uu ku guuleystay doodiisa sidaasina sharci looga dhigay in uu naagtan iska furi karahayo sidaas sharciga qeyl ugu helay inuu xaaskiisa uu furo falxumo ay la soo waji doon tahay laakiin sheekada dulucdeeda waxay soo shacbaxday kadib markii Feng xaaskiisa ay dhashay gabar taasi oo aan u ekeen labadeeda waalid waa hooyada iyo aabaha arintaasi waxay shaki iyo walaac baan gelisay Jian Feng isagoo kula dooda xaaskiisa inay soo bandhigto ilmahan haddii nin kale oo uu dhalay oo ay khiyaano kula kacday balse markii doodda jiitamaysay ay xaaskii Feng waxay daha ka rogtay sheeko la yaab leh oo ah in aanay muuqaalka soo jiidashada leh ay isku guursadeen ay ku samaysay qaliin qurxin ah balse ay leedahay muuqaalkeeda rasmiga ah oo ay soo banataasi oo caro iyo madax xanuun ku riday Jian isagoo markii ay hortimid xaaskiisa ayna la soo baxday muuqaalkeeda rasmiga ah uu go'aansaday in aanu la sii joogi karin foolxumadeeda uuna sidaasi ku dalbaday inuu furo Jian Feng inuu furo xaaskiisa uguma harine wuxuu maxkamadda ka dalbaday magdhow lacageed oo gaaraya $120,000 oo uu ku sheegay inay kaga baxday arooskeeda labadooda taasi oo loo xukumay lacagtaasi inay soo celiso xaaskiisa oo uga cararay falxumada warbaahinta dalka Shiinaha ayaa arrintan toddobaadkan si weyn u hadal haysa waxaana la sheegay in haweeneydan ay sidoo kale ku bixisay $100,000 qalinkan ay isku qurxinaysay iyadoo isaga soo samaysay waddanka Kooriyaada Koonfureed qisa aad cajiib ah weeyaan adigu labadan keebad xukumileed keebaa khaldan ma ninka ayaa ku khaldan inuu naagtan u furo mise naagta ayaa waxay ku khaldan tahay inay qaliin isku soo samayso ninkeeda khiyaanto keed xukumileed haddii adiga maxkamadan aad garwadeen aad ka ahaan lahayd waa ku maasantihiin janaalkan si aad u soo daawanayseen haaza billahi tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.